الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين saaka waxaanu goor hore oo salaadii subax kadib u soo anbabaxnay saan u soo hubino bal xaaladda ay ku sugan tahay wadadii gaar ahaan inaha aynaan wali aynaan waxba dhigin aynu ku talagalay inaan wax dhigno baabuurtani saarkiisaan waa baabuur waaweyn qaar kale oo badan way naga dambeeyaan oo arki doontaan sawirkooda waxay ay baabuurtani waa baabuurtii caadaysatay ama la macaamishay wadada intii aynu caratuulka dhignay u soo baydhay weeyaan ma sha Allah tabarakallah maalin kasta 100 baabuur oo noocaas ayaa wadadan mara ama 70 markay u yartahay ayaa mara oo kulli cashuur iyo wax la midna ay gobolka ay ka soo galaan alxamdulillah rabbil caalamiin waa midhii wadada aynu inagu dhignay weeyaan ama aynu ka shaqeynay gudida wadada ay hawl badan ka gashay gurmad ay mid badan ayaa ma sha Allah tabarakallah ay u dadaashay saaka waxyaabaan u soconay waxa kamid ah in aan soo ogaano meelaha u sii muhiimsan ee gudida wadada ay doonayeen wadada ay ka bilowdo inaan sii hubino inta kiiloomitir ay tahay iyo baahida loo qabo in si dhaqso ah wax looga qabto baabuurtaas markii aan aragnay kan wali waxa maxaa nooga sameyn weydeen baahida loo qabo waa baahi aad iyo aad u muhiim weeyaan oo meesha ka muuqata marka indhihiina ayaad ku arki doontaan insha Allah taala halkan waa halka la yiraahdo in cali guuleed baa lagu magacaabaa ama dhuurta aaga dhuurta lagu magacaabaa waa 1 kiiloomitir weeyaan iyo 100 mitir 1 kiiloomitir waad arkaysaa baabuurtii waa la wada jiidayaa waka baabuurkaas u jiidaya meesha soo hadda ka saaray waka alxamdulillah rabbil caalamiin walaal baabuur baa soo galaya waa meesha ugu daran meelihii imika aleemadkii lagu saxay wadada markii la toosinayay buurtaas baabuurta qaar ka wareegayaan qaarna kan ay soo mareen marka aad baad la socon doontaan insha Allah taala wax qabadka aynu ka qabanno halka maanta saas oo egtahay laakiin berrito la si kale ayay ogaan doontaa insha Allah taala safarkayagu wuxuu daaranayo kale in wadadii aynu sameynay tacabka badan iyo lacagta badan ay naga baxday aynu iska kaashanay in badan bal sida ay roobabkii laxaad kala maadaama roobab dayreed oo aad fara badan ay sanadka deeyeen bal sida waxyeello u gaarsiiyeen iyo in wadooyinkii xidheen iyo in kale ayaan soo ka soo war doonay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan aragnay wadadii wax la wax iska bedelaan jirnay sideedii si ka sii qurux badan intii aynu sameynay baanu aragnay marka taasina waa mid nagu sii dhiirigelinaysa ama nagu dhiirigelinaysa dhamaanteen wixii aynu dhignay in wax raasamaal oo maanta halka inoo oolayo uu yahay oo doonayo in kol walba inaynu sii taageerno ama aynu sii xoojino marka taasina sidii aanu filaynay waxay noqotay wadadii wadabad qabta baabuurkiina gaadiidkiina caadi isaga marayo bal oo gaadiidka dhulkii kale oo dhan intuu ka soo leexday iyadii uu dabada oo ishayo oo ilaa Hargeysa ilaa Beligubadle baabuurtu ay taxan tahay marka insha Allah taala taasina guul ayaan ku tilmaami karaa inaynu ka gaarnay ujeedadeena iyo hadafkeena الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين lacagta la ku qoran $1,704
ayaa waxaanu ku wareejinaynaa ururka ama aan idhaahdo guddida waddada sidii ballanku ahaa waxaanu ku wareejinaynaa anagoo ah ururka Gurmad Relief oo in badan ka shaqeynayay ururinta lacagtan waddada Balligubadle Hargeysa waxaanu ku wareejinaynaa maanta lacag dhan $704 ayaan guddiga ku wareejinaynaa iyaguna saas insha Allah taala hawshii u bilaabi doonaan si ballanka ahaa bismillaah alxamdulilah rabbil caalamiin kulankan aynu maanta halkan isugu nimid waxaanu kala wareegaynaa qadar lacag ah ururka Gurmad Relief lacagtaasoo isugu jirta laba qaybood oo qayb hore noo soo gaadhay 18,000 iyo waxoogaa oo ay gashay waddada intii hore aynu ka qabanay maantana ay inagu wareejinayaan goobtan aynu joogno $43,000 oo naqada lacagta marka la isku daro waa 61 sida ka aragtaan boorka iyo $704 aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Gurmad Relief iyo dhammaan beesha deegaanka degta ee ka soo qayb qaadatay dhismaha waddada Balligubadle rag iyo dumarba dibadda iyo gudaba danahay guddida waddada waa idin mahadnaqaynaa kolley imaka waxaynu ku jirnaa urursigii marka de hawsha la bilaabana kalibiyadeeda waa heli doontaan aad iyo aadna waa ugu faraxsanahay inay waddadii noo socoto hawlaheedu waxaan ilaahay ka sii badiya insha Allah billahi kareem waxaynu siraysi haadaan aynu siraysano hoos aynu ahaato الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت هلكم حين سوون نبي إن نقول ريشيان Gurmad Relief لعقتها قدر هلكم كقارن كوبيل إحنا نكون $704 هذه أدبان نقول هذا علينا Gurmad Relief وحكمت هاي بالش كده شو جديدة وضدوا وحنوب هنا كل إلى أفرشن بال أو كلا أو سيدا Gurmad أو كلا سيدا بالش ganacsatada oo kale waxaan u baahanahay gaadiidleyda oo kale waxaan u baahanahay reer miyiga xoolaha haysta oo kale kulli guddida waddada waxa aad ugu baaqaysaa ama ay jeclaysanaysaa inay helaan baalal badan oo sida Gurmad Relief oo kale insha Allah waan rajaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo waan aad iyo aad baan ugu baaqaynaa wax rajayn doonaa inaanu insha Allah jawaab degdeg ah heli doono aad iyo aad baan maanta ugu mahadnaqaynaa insha Allah Gurmad Relief insha Allah waqtiyada ku xigana wax rajaynaynaa qaybo kale oo sida Gurmad Relief oo hadii Ilaahay yiraahdo aan sidoo kale u soo dhaweyn doono insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى أيام هذله نقول مية قابطن ين العقد كلا ورجنور عليه إن Gurmad Relief يدا يشوغان أخيارتي يو قرب شوكتي بقى أي شوغان يجود دي قدومي هان شحوا بوشوغل افتجيسي إلهي وحنا قبر إن أول عليه الناس العقد سوبحيي حلقي أوجود دقيقين إن لهم بيسان كحسنات كالله وقدره dadoodan macslahayn Allah siiyo inta ay soo bixiyeen in ka badan oo xalaala oo barakaysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala gacantooda Allah soo geliyo ubadka Allah u barakeeyo haynta Allah u barakeeyo muraadadoodan macslahayn Allah siiyo Ilaahay waxaan ka barnaa subhanahu wa ta'ala sida ay ugu hagar bixeen ay ugu hureen waddada in iyagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala arsaaqad waasoo oo xalaal oo barakaysan Ilaahay siiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala hawa aqbalo halkii ay u niyoodeen Allah hawa aqbalo walaalaha gudaha sida ay ugu arintaasi isugu dibarideen xisaab celinta ay u sameeyeen barnaamijka ay isugu dibarideen runtii aanay hariyo habeenba uga seexanin iyagana waan ugu ducaynaynaa waxaan leenahay idinkana waqtigiina qaaliga iyo sida qiimaha badan ee ugu wareejisteen idinkana miisaanka xasanaadka Allah idinku daro dambigiina Allah ku dhaafo dambiga waalidkiina Allah ku dhaafo awlaadana Allah idinku wanaajiyo rabbana Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda Ilaahi subhanahu wa ta'ala hawsha aynu wada wadno walaalaha gurmadna ay wadaan guddida waddaduna ay uga sii horeeyeen iyagana waxaan ugu ducaynaynaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xiltiro oo Ilaahay ku asturo oo muraadadoodan macslahayn Ilaahay ku siiyo oo hawlaha Ilaahay ugu dhameystiro amaanooyinka الله نو إلى اليوم الله نقول إلى اليوم وصلى الله على نبينا محمد